عاصمة Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa ahaa magaalada ugu quruxda badnayd Afrika waa meel aad u qurux badan oo Afrika ugu bilicsanay Soomaaliya markay dagaaladii dhacdayna iyaga ayaa gacantoodii ku burburiyay oo dagaalo aan soo kabasho lahayn halkaa ku galay oo muddo 30 sano ah ayaa ummadda Soomaaliyeed ay dagaal ku jirtay caasimadoodana ay sidaa noqotay haddaba caasimadda marka ay burburtay dadkii ku noolaa miyiga ee geela dhaqanayay way ka soo dareereen geeloodii oo caasimadii ay yimaadeen halkaas ay magaalo ka soo galeen ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan 18 gobol ee Soomaaliyaba qof walba geelisi uu ka soo dhaqaaqay oo caasimadaha ayuu galay haddaba waxa idin hayaa geeli oo isna soo baxay oo isna magaaladii yimid bal fiiriya geelan aad u jeedaan wuxuu ku nool yahay guri dabaq ah oo burburay ilbaab ayuu leeyahay halkaasi ayuu hal uga soo baxaa kadibna halkaasi ayuu soo daaqaa habeennimadii markabkiina uu ku soo noqdaa halkaasi ayuu seexdaa waa arin la yaaba geela muxuu raadinayaa geela wuxuu raadinayaa kuwii raacayay oo magaalo galay waxaya oo ilaaliya ayuu waayay maxamuud dhaqani nuur hubaal TV1 Muqdisho